وينا إلهي بوين قريان دودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مرة وانا مخلي الدباني أنا في الدباني بيجي إن أنت في الدباني ماذا لو يجي واحد من الغل قاعد. قلت بالشيء الواحد نقطة بالشيء هاي كالقعاد وشعر أنا قالوا الشبح يا لوري أنت بعد مكان لوري أنت وأنا يوم أكتر سيستم خليبان كه خليبان كاي جد داي في والله يسوى صباح فوان دعاء للشباب هاي خليبان ليلي وكان خليبان واكل متشرف إن هاي ثلاثة كلام يسكت أنا ما أعطيك الظنة لكن خليبان واكل متشرف قف يعني خليبان الحلقة ودي بتاع عم بدل وكيلات شوجة عم بدل دولتي شوجة إذا ديمك شرعيا غير لما نانتين والله الديان كحبين دول الديان بلي ما حد مكا وين إنه نقولنا بالشو هذا إنه كمان كلمة إنه هنا كعادو بالشو شرع جكوا هذا وين إنه نقولنا كلمة هو الشيء هو شرع إن أروح أنا سياسي قضيتي ستهاي كريالي كلمة وينين كلمة ما أدنى وحي لو هذا اليوم هل كان كذا يرد على شوية مكا سوغان بين عاو كهل سوغان كا أمبا إيه يقولون هذا أما كراب سوغان وها وحيا بها دسا وحلوية إنه وطنية هو محور كرنيمة ما أنت يعني هرا يقالني ويعني كرنيمة يقدر من كذي يعني كفوا عني وحينو هندسني أم بعينو نرى تشتى أم بيعني وحيابين وهذا ما كمل إن والدنيا تهاي وحلا بركة والدنيا وحلا بركة معه والدنيا هو حريك موادنك يقرن مدي سكان حس حريك كاسي مركو سرعيو قرنيمو وإن هفكر قرنيمو أي هفكر كادو النقطة وضو فكر دلكا دلكا مقع قرن كادو مقعي سولي وكاكو فكرتو مثلا صومالي لأنت قرن كنا اللي قاعدة صوماها مكا موادي كالصومالي لأنت فيه والدني يدي سو حتى بها كتا وإن صومالي لأنت رهانو كتا marka suugaantu iyo ereyga qoranooda oo waxyaabaha kobciya xiriirka sidee u kobcinayaan waxay sameeyaan waxaan la yiraahdaa narrative waxyaabaha ummadda ay halqabsi ka dhigato halhays ka dhigato ya ay u fikiraan ayay abuuraan laakiin nasiib darro inagu maanta 30 sannadood baynu jirnaa suugaanteeni iyo ereygeeni qornaa weli u gaarin heer ودنيتي أم بقرة نمدني نجد حرشة ودي وحين نجد حرية صوماليين وحين كهلنا أمة صوماليات وحين كهلنا ضد صوماليات وحين كهلنا سودان صوماليات مكان تابر كي مرة لنا وحد كبدا هكذا إلى أن قرنمدي صومالينا نجد بحد وأنا ينبي بي وحاولت إلى أنو بيها يو حاجة يو وهي يوم الحرب كلها الصوماليين يو غيرنيمو قبيل يقوميت أيو فكر كلمة فكا أنا قلت أنا هاي هدي عن محي هذا الشعب أنا هايون سياسي يمكن الشعب ككبح كل احتراه هاي يهدي عن موضوع اللبان يهدي عن موضوع حل طلاب مدرسة قطرة كان مرة بكا هذا الدونا يوم تاجنا دونا أنا وقتها كان هدي عن تحت هذه هو قرية كان كقري دون الله وحنا أخذ وحنا هذين الدويتوين صار في لبا إنه وين الله وإنه رئيس سومالي الآن هي بوجاك تودي لصوب الدين أمة كلمة أمة سيدي أمة ومحور نيش
nation la yidhaahdo Soomaali ma jirto waxaa jira nation la yidhaahdo Somaliland nation la yidhaahdo Djibouti nation la yidhaahdo Ethiopia nation la yidhaahdo Somalia nation la yidhaahdo Kenya nation la yidhaahdo name it wadan walba soo qaad Saudi Yemen nationadu waa kuwa nationnimada iyo dawladnimada maanta modern statehood-ka la yiraahdo ee concept-ka nation state-ka la yiraahdo ay ka soo jeedaa waa ilbaxnimadii islaamka umma nation halka bay ka timi marka waxaad arkaysaa siyaasiyiin reer Soomaaliland oo dhan ee ummadda Soomaaliyeed baan hambalyeynaya amba tahniyadeynaya munaasabada ummadda reer Soomaaliland weeyaan umma waa nation يعني marka qaranimadii waxaad arkaysaa inay qaranimadii wali aanayna inala falgalin oo dhaqankii iyo hab fikirkii qaranimo aanaynu wali haynin marka dadka waaweyn ka sheekeynaya labadaan inay waaweyn Maxamed Ibrahim Warsame Hadrawi iyo Maxamed Mooge Liibaan bugaagtood mid uu geeriyooday Ilaahay u naxariiste midna uu nool yahay Ilaahay caafimaad iyo cimriga ha u barakeeyo wadad anu waxaan u arkaa muwaadiniin reer Soomaaliland ma rabo in la ila sheegto way hadii la ila sheegto ummadnimadeedii wax kama jiraan Shakespeare England lama sheegto iska daa Great Britain waxa la yiraahdo iska daa the United Kingdom of Northern Ireland and Great Britain waxa la yiraahdo England wadanka Ingiriiska la yiraahdaa inagu gobolaynu ku sheegnaaye waa system adduunka ku unique amba ku kaliyeystay weeyaan dawladnimadiisu waxa la yiraahdaa waa a nation within nations waa wadamo isu tagay boqortooyadooda marka ninkii Shakespeare loo dhanayay Hadrawi lagu dharariyaa Hadrawi waxaan aaminsanahay inuu Hadrawi ka sareeyay English buu ahaa England buu ka soo jeeday dhowr boqol oo sano ka hor ayuu halabuurkiisu jiray lama yiraahdo maxaa la yiraahdaa halabuurkii British ka ahaa ilaa maanta hadee maxay haday Google ka aad ka eegto hadii aad bugaagu qoriyo hadii meel walba aad ka eegto waa the English put yani waa ninkii halabuurkii English ka ahaa haddana meel walba af Ingiriis lagu dhigto ayaa suugaantiisii lagu dhigtaa de sida hadii ay New Zealand amba Australia lagu dhiganayo playgii amba riwaayadihii uu sameeyay Shakespeare de Shakespeare markuu halka taga ma noqdo Australian amba New Zealander ma noqdo waa Englishkii uu yahay taan uga gon leeyahay waa maxay Hadrawi isagoo Somalilander ayaa dad suugaantiisa hadii la rabo Soomaaliya lagu dhigan karaa oo Ethiopia lagu dhigan karaa oo waayo iyaga u baahan qofkii af Soomaali dhiganaya luqad Soomaaliba ma aha luqad walba qoran suugaanta ayaa sees ah marka waxay ku soo dhacday inaan book qoro insha Allah goortu yimaadaba ka hadlaya carqaladaha hortaagan wadaniyada amba qaranimada Somaliland inay la falgasho dadka ayaa igu soo dhashay waayo ummad hal doorkeedii ahaansho kale leeyahay ummad ma noqonayso de ahaanshaha qaranimadu waa ahaanshaha ugu sareeya qof bini aadami maanta koonkan aynu ku noolnahay uu yeesho ninka Masriga halabuurka Masriga gabyaaga Masriga qoraaga Masriga hadee jaamacad Morocco ku taala amba Sacuudiga ku taala amba iskuul ku yaala lagu dhiganaya de lama yiraahdo qoraagii amba halabuurkii Arabiga aha de waa kii Masriga aha waxa la dhiganayaa maanso halabuurkii Masriga aha ee hebel uu soo mariyay amba uu soo halabuuray ayaa la dhiganaya marka kaasi wuu iman doona insha Allah ka horeyn doona buuga ka horeyn doona wuxuu noqon doona insha Allah experience-kii ololaha iyo maxay haday in ka qaatay hab fikirka dadka reer Somaliland doorashooyinka iyo yani wacyi gelin la'aanta ummadda
ay guddida doorashooyinku maaha inay u xil saarnaato uun inay doorasho qabato oo markaa doorasho la qabanayo uun ay 6 bilood ka horeeya ay shaqo qabato waa inay sanadka dhan 365 maalmood sanadka ka kooban yahay shaqadeedu ay socotaa oo ay wacyigelin waa in layna baraa dimuqraadiyaddu maxay tahay waa in layna baraa qofka la dooranayo maxaa lagu dooranaya qofkan aad dooranayso ma waxaad ku dooranaysaa waxaad imika isii ku tidhaahid waqtiga xaadirka la joogo oo waxii habee oo baahidaaba aan qabaa amba ururkaygu qabaaye ii samee mise waxaad ku dooranaysaa hab fikir siyaasadeed uu aaminsan yahay oo masiirka ummadda lagaga talinayo uu la tegayo adig kugu matalayo waa inay bartaan dadka reer Soomaaliland kaarka codaynta haystaan inuu yahay taladay ku lahaayeen miiska masiirka ummadda lagaga taliyo kama maqnidin oo kama maqnin masiirka ummadda because cod baynu bixinay kaad codka siisay ayaa taladaadii iyo fikirkaagii caadi ahaan sida dimuqraadiyadda iyo qarannimadu tahay ayaa qaadaya marka qofka dooranaysa waa inuu noqdo qof aad isleedahay in fikirkaaga sida aad isleedahay qarankani uu ku hagaagaya ayuu sameynaya maaha yani wax kale inaad ku doorato marka guddida doorashooyinku wacyigelinta iyo tababarka wadaniyad lama bartay waxyaabaha la barto waxaaba kamid ah ee dadka lagu wacyigeliyo yani dimuqraadiyaddu siday u shaqeyso nidaamka dimuqraadigu wuxuu yahay xuquuqda muwaadinka waajibaadka muwaadinka taaba la bartaayo civic education baa la yiraahdaa ee wadaniyaddu waa dareen abuurma oo kobca maalintuu ilmuhu dhasho ka bilowma ilaa iyo inta uu godgalayo maalintuu godgalayo haddaanu qaran ka bixin oon dowladda hoose warqad laga soo qaadin inuu muwaadinkaasi geeriyoodu qaranka ka baxay qaranba kama tirsaneyn marka innagana iska daayin mid geeriyooday warqad la siiye kii dhashay baan warqadii dhalashada la siino dowladdeena hoose uma malaynay inay department leedahay muwaadinka dhashay markuu dhakhtarka laga soo qaado inta la tago dowladda hoose warqadii dhalashada looga soo qaado si bari ka maalin 6 jir markuu noqdo iskuulka la qorayo ee iskuulku weydiiyo khasab ay noqoto maaha yani haddii aad hayso keen iskuulku maaha inuu qoro ilmaha warqad dhalasho la'aan halkaa bay ka bilowmataa kobcinta wadaniyaddu maaha class la fariisto sidana oo wax la akhriyo waad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi